wiilkii magaalada Hargeyso waxa waaye gabadha ku dhibaatay dhowr maalin ka hor maanta waa dhintay hooyadiis daqada ka hor waxa waaye codadka shalay duubta habarta maamada laakiin hadda la soo geliyay suuqa waxa waaye media ku arkaysan maamada oo hadlayso oo wiilkeeda waxa waaye dhayso waa la shaqoolay oo marka guriga markuu tagay nin isku raaceen laba maalin ka hor aan waa ka soo hadlay guriga inuu nin marka hore geeyay kadib maxamed uu soo noqday waqti dambe uu gabadhan ku weeraray taas waxa waaye waa ka soo hadlay maamadana way soo hadashay taas waxa waaye walaalayaal qisadan waa iyo wiilkan isku qiso waa labadan qof yarkaas maxamed jaamac Allah magaalada berbera oo isu gubay gabadhaas darteed isu gubay gabadhan inuu dululay ilaa gabadhaas badbaadiyay qabiilada kulli waa idin sheegi doonaa marka waxa waaye walaalayaal meeshan wax oo yarkan stress ahay iyo waxa waaye mutaqaana sheeko kale ahayd iyo waa sheeko been way marxuumku waanta naga hooseeya Allah u naxariisto yaa been laga sheegin hooyadiisna maanta waa nooshahay cunugan gabadhan jeclaayeen wayna sheegtay inay xiriir kale la samaysatay meeshaas waa meesha maxamed ka maseeray oo gabadhan labadeen adduunka ka tagayna taas waxa waaye confirm waaye hadda waxaan rabaa markay wax u dhaceen inaan mar kale iyo qisadan wax dhan inaan idinku soo celiyo waxa waaye horta walaalayaal gabadha waxa waaye gabadhan asman ku bilaabayna tan qisadan kale u soo noqonayna oo sanadkii hore gabadhan waxa waaye gabadha habar awal waaye sacad muuse waaye reer gadiiday ka tahay waxay wacd ku mareen waataan labaan aan ka soo hadlay in 100 qof ka badan ay u dhimanayso wali habar yoonisa sheek hindi anaga ma soconayso uu jeclaa iyo blogay saartay iyo baqbaq iyo waxay dhan aabara waxay dhan aniga waxas ma socoto gabar dhan oo sacad muuse ah oo reer gadiid ah ayadoo taagan oo nool soo lama gubin dad u dhimanaya meeshaas waa meesha habar yoonista ay ka kaceen isla markii waatii la qariyay waatii khatarta la diiday mutaqaana xaaladiis inay xumaatay mutaqaana asoo socdo horta meesha ka soo baxay oo video waa la hayaa oo intay ku gubtay meeshan wax yar marka madaxan wax dhici karta inay jugta madaxa gaarto dhici karta dabka laakiin asaga jirka dhinacan macna wax ma gaarin oo dadkooda arkayeen labadoona ayada darneedo ayadu koomay ku jirto marka meesha laga qaaday asagana soo socdo imaad wayna dhici kartaa in tiis imaado dhinto way dhici kartaa laakiin sida saxadka siboo soo waday sida qisana waa soo wadaa waxa waaye isaaqa maanta iyo dadka badan siday leeyihiin isaaqa dhulkoodii waaye sheekada meesha ka dhacdan ayaga og iyo dadka dhan markaa macnaha xogta markaa soo indhayso waxay aaminsan yihiin mutaqaana in sirdoonka Hargeysa inay ka dambeeyaan ee og yihiin in ninka la dhameystiro macnaha yarka maxamed la dhameystiro maadaama gabadhan ay habar awal sacad muuse ay tahay oo wali reer gadiid ay tahay oo niman aanan naxaynin aan waxaas yeelaynin macnaha gabadhooda nool waxa waaye marka si sheekada dhan loo soo gabagabeeyo wax kale u dhicinbo yarkay hor dhinto waay haddii gabadha dhimato yarku hor dhinto waay meesha aan ka soo fiir macnaha waxa waaye inuu sheeko noocaas oo hadda suuq ku jirto oo isaaqi waxay leeyihiin habar awal waxay leeyihiin anaga waxaas ma aaminsanay leeyihiin ninkan ma dhimanin been way ay taagiin nimanka habar awla taas waxa waaye wax suuq ku jiro waay waana dhintay confirm laakiin in la dilay inuu dabka u dhintay taas waa dadku waxay shaki gelinayaan dhooya Allah u naxariisto taqaana gabadhan saasoo ninkan u dilay waa maseer jecel waay waana faantay maxamed hawshiisana ma ahayn inuu gabadhan daawaco ama inuu dilo ahayd macnaha asagana uu dhinto macnaha sida yarkaas oo kale waa faanteen maxamed waxa la magaciisa ay ku cilaan taqaana Cabdirashiid Suldaan waatan ka soo hadlay waa nin Soomaali isaaq habar yoonis Allah u naxariisto maanta anaga hooseeya gabadhan waxa waaye mutaqaana asma Cabdirsaaq aydan waxa waaye Soomaali isaaq habar awal waxa waaye sacad muuse waxay ka sii tahay reer gadiid ka tahay dadaan naxaynin waaye mutaqaana horta gabadha waxa waaye waqtigeedana aydan gabagabo waaye haday dhimatana waxa waaye ilaa jannas meesha Allah geeyo oo dadka ehelkeed hadda hoose waxa laga soo xaqiijiyay inaysan rajo jirin wax kasta ilaah og ilaah badbaadi karo qofkan ilaah abuurtay waqtigeedana ilaah og laakiin faataxada umar inuu ilaah caafiyo haday dhimtana jarada meesha uu ilaah geeyo walaasheen asmo kiiskan soo noqon marka labadan kiis isku kiis waay sheekada fiican u fahmaya meeshan wax waalwaali iyo waxa suuq loo soo gelay maxamed Allah naxariiste oo leeyahay depression ajri iyo arrinta kale ahayd maxamed gabadhan asmo wuxuu u dilay asaga naftiisa isu dhaafiyay waa jacayl maseed adduunkan waa ka jira tan idin keenaa marka sida sheekada u fahantaan ninkan yaa waa ninkan magaciisa waxa la maxamed jaamac gaxnuur asagana sankor dhintay bishii maaj 2020 Allah naxariisto wuxuu ahaa nin asagana Soomaali isaaq habar yoonis reer berbera waaye shirkadda Esco u shaqeynaa labadoodaba shirkadda Esco u shaqeynaa waxaan sheekan Esco u shaqeynay maxamedna Hargeysa shirkadda wuxuu u shaqeynaa aan ka soo hadlay maqbul aad qaybta elektroonigada nin waxa waaye nolol fiican haysto 22 jir 23 meelahaas baawur wato noloshiisa okay waa maxamed wax ka maqnaa ma jirin Allah naxariisto taqaan waana jaceelkaas u dhintay waxa soo haray yarkan maxamed jaamac asagana waxa waaye waataan ka soo habar yoonis reer berbera way gabadhaas oo jeclaaday oo mutaqaana garoob saddex inu haysato oo mutaqaana habar jecel waxa way xiriir dhex maray asaga wuxuu u shaqeynaa shirkadda Esco oo mutaqaana berbera aad loo yaqaan Allah naxariisto
waxa waaye bishii maaj 2025 uu dab soo qaatay intaas dab kala gaarin waxa waaye labadooda xiriiray lahaayeen 2 sano wada socdeen 2023 isbarteen waxay ku balbeen inay isguursadaan gabadha asagoo reerkiisa u tagay wuxuu dhahay gabadhaas waaye mataqaanaa tolkay waxaan rabaa in la ii doono reerku waxa la gabadhiyaaba gabadhu u sheegay waxa la reerkaas habar jecel jufadaas waa naqaanaa cidaas anaga isma galno asaga reer cirfiid ma ciidid kala habriin soo isiqaana jufadaas waa yarkaas Allah naxariisto gabadhu waa loo diiday هلا عداس أنا اسمه قالوا الساق أيقول عن إيران إسقورسن والله بلا وسوديدان إيه أيق إسقو دقوا وضقوا إسقور سمانة خير أهل لسكمان دون ماي تاسوا فانتين محمد ولودي قبل ولودي ده برجع الحيتر ولا لو أنا ريركي نور ريركي واحد يعني مرة منه ومرة كهرباء أنا وريركي وقدر خلها لكن هذا بريرك هذا ولا لو أسنا بتقولين أسودي ده مرة كحول أنا كنت جعل بربر أنا كتجينا ملاس كلا أذينا ويدي ده قبل الحيتر ما هيستا ولا لو رالع هاو وهو وهذا جعلك وشكت بلاغي صارت أصلا وهو جعلك كفافي أيضا مرجوك تقول ما هذا بشي ماج لابد يكون إيه شيء لا تنكي دبوا بنزين اسكوب البلي أيضا كبود أيضا كعرت مرك إلها بالبالي أيضا قبيك لا قيدي مرة عرت أصلا ساسو كبت أسباب ولا عرني كده هرجيس على كينه هرجيس وكبت لكن قرشيس هو محمد الله ونحرسته محمد جامع إنه قبلنا صار نتان معناها جعل سأفهمتان كيس كان نسامي ايش انا كنت فيه ما تساق بدو نولين ريل سمان لبا مقالكم اسكو داي ونولي انت هدا بين كشيء اسكو كيس اي كودنتين اسكو سين كودنتين لبدود السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته